iskuulka hoose dhexe iyo madrasada Bakura Academy ayaa maanta munaasabad ballaadhan ay ku qalin jabinayeen arday kor u dhaafaysa 50 arday oo bartay Quraanka Kariimka culumtiisa iyo waxbarashada maadiga xaflad qalin jabin ugu qabtay xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaana ka qayb galay culimaawiin marti sharaf waalidiin macallimiin maamulka iyo ardayda Bakura Academy qaar kamid ah ardayda ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabaha ay barteen وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا waalidiinta iyo marti sharaftii lagu casuumay xafladda oo halkaasi hadallo ka jeediyay ayaa qiray dadaalka ballaadhan ay sameeyeen macallimiinta iyo maamulka iskuulka iyo madrasada Bakura Academy waxa la barto waxa ugu khayr karoon oo ah diinkeena suuban sharafta iyo ciziga leh si gaar ah Quraanka Kariimka iyo axaadiista waxa juhdiga waxa iska lahaa waalidiinta iyo macallimiinta Bakura Academy waa wax xaq rabbina ay ka helayaan ajr iyo xasanaad fara badan adduunkana ay ugu heeliyeen inay diinta quwayaan oo adkeeyaan Bakura waxay noo hirgelisay primary school iyo madrasad isku meel amba waxaan dhihi karaa isku dhagan taasi marka waxay noo fududeysay noo sahashay halkii aan ilmaha marna ka geyn jirnay school marna aan u sii wadi jirnay meel kale oo madrasada oo diinta ka bartaan marka waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo macallimiinta iyo maamulka guud ahaan Bakura Academy waalidow iskuulada waxa loo aasaasay loogu wada ordaayay loo geeyo ubadkee buugta loogu iibshay adduun loogu bixiyaa arrin sahlan ma aha waa inaad ogaataan tacliinta rasmiga ah halleeyay sameeyay nidaamka uu keenay koomkan in loogu dhaqmo wax lagu garto laga faa'iideysto qofka bini aadamka uu dhiso waa diinta islaamka maamulaha guud ee madrasada iyo iskuulka hoose dhexe Bakura Academy Maxamed Cumar Maxamuud oo ugu dambeyntii ka hadlay xafladda ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda qalin jabinaysa iyo waxyaabaha lagu barto iskuulka iyo madrasada Bakura Academy maanta waxaan qabanay xaflad aad u ballaaran oo ahayd xaflad sanadle ah waa sanadkii labaad xafladda waxaana qalin jabisay arday aad u tiro badan oo ilaa 55 arday gaaraysa abaalmarino kala duwanaan halka ku gudoonsiinay oo qaali ah qayb waa qaybta taxfiidka quraanka ardayda ka qalin jabisay oo ayagu la siiyay kitaabo iyo shahaadooyin oo markaa farbarkii dhameeyeen marka waxaan ku abaalmarinay kitaabo iyo shahaadooyin si ay ugu diyaar garoobaan quraankii iyo akhrintiisii meesha ka akhrisan lahayn ardayda kalena waxaan ku gudoonsiinay kaalmaha ka galay qaybta iskuulka waxaan gudoonsiinay buugaagtii sanadka kale ay u gudbayaan ama kalaaska ay u gudbayaan buugaagtii wax siin lahayd Bakura waxay isugu jirtaa laba qaybood qayb taxfiid ah oo quraanka lagu xafido lagu barto fartana lagu barto iyo qayb primary school ah waana sanadkii labaad oo xafladan aan qabanayno sidan u weyn in aan xoog saarno in ardaydeena ay la baxaan waxbarasho tayeysan oo wixii ay bartaan ay yaqaanaan iyo akhlaaq waxaana macallimiinta iyo ardaydii qalin jabinaysa la gudoonsiyay shahaadooyin iyo abaalmarino lagu dhiirigelinayay Cabdirashiid Obsiye oo Cable TV Nairobi adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida